Waxaa deegaan u dhow wabxo lagu dabiibayaa Cali Maxamuud Raage Cali Dheere, afhayeenka Al-Shabaab. Deegaanka wabxo waxaa subaxnimadii hore ee saaka la wareegay ciidamo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, iyadoona sidoo kale haatan maamulka halkaasi ka talinaya ay yihiin kooxda Al-Shabaab, balse weli waxa is horfadhiya ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada ADMIS iyo sidoo kale dadka deegaanka, iyadoona sidoo kale haatan la soo warinayo in deegaanka wabxo guud ahaanba gacanta ay ku hayaan kooxda Al-Shabaab, balse haatan la qorsheynayo in dib looga saaro deegaanka kadib markii ciidamadii deegaanka la wareegay ay isaga baxeen ee dowladda federaalk Soomaaliya ka tirsanaa. Muuqaalka intaan u gudagelin daawade fadlan muuqaalka leegare oo la wadaag saaxiibadaada followde page-keena Ducaysane Media oo subscribe garee channelka Ducaysane Media. Mahadsanid daawade. Aanu ku horeynay saaxiibayaal deegaanka wabxo ee gobolka Galgaduud oo maalinimadii shalay ahayd ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda iyo ADMIS ayaa waxaa haatan la soo warinayaa saaxiibayaal in subaxnimadii hore ee saaka halkaasi gacan ku haynteeda ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab oo horey looga qabsaday. Deegaan u dhow wabxo ayaa waxaa la soo warinayaa in sidoo kale lagu dabiibayo dhaawac halis ah oo soo gaaray Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo ah afhayeenka arxanlaawayaasha ee Al-Shabaab, iyadoona sidoo kale haatan ay jiraan warar sheegaya in macawisleyda ka dagaalanta halka deegaanka wabxo isla mar ahaantana iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ay doonayaan in weerar ay ku qaadaan mar kale deegaanka wabxo sida ay ula wareegaan. Warar kala duwan ayaana ka soo baxaya saaxiibayaal halka oo dhaawac fara badan iyo dhimasho ayaa ka dhashay, walow aan la xaqiijin karin khasaaraha dhabta ee haatan halkaasi ka jira. Ila daawade xabado toos ah oo ka dhacaya halka. Ku mahadsanid daawashada muuqaalkan. Fadlan daawada muuqaalka leegare oo la wadaag saaxiibadaada siduu u baaho ku soo biir Ducaysane Media sidaad ula socoto xogaha maalinlaha ee aan baahino.